adaanu kula hadlaynaa iyo xukuumaddaada dhukorane beenta badan leh naagna inaanu u jawaabno ma rabno naagna inaanu dabagalno ma rabno maxaabiistii aad ku ololaysayna waxaanu rabnaa in aanu helo bisha gudaheeda waxba kama hadhin malag baa ka hadhay wayna wixii dhaca waxba kuma lihin shaqana kuma lihin dawlad dambe oo Soomaaliland la yiraahdo kani waa warkii ugu weynaa oo xilligan naxdin weyn ku noqonayo munaafiq Ciro beesha habar jeclo ayaa gabi ahaanba markaasi kala laabatay kalsoonidii xukuumadda Ciro iyagoo dhammaanba xilligan ciidamadoodii qabaa'ilka kala baxayo waxa loogu yeero ciidamada qaranka Soomaaliland leeshiyad beeladkii habar jeclo ay ula baxeen SSB ee la aasaasay October 2023 ayaa xilligan dib loo howlgelinayaa waxaana laga soo warinayaa magaalooyinka Qorolugud iyo sidoo kale Caynabo waraan u fiicnayn dhagaha Cabdiraxmaan Ciro xilligan damirko dhinta walidul taagnahay deeqeba mooye dulkale masugo diiday anigu diiday dulmiga diiday dadkaygu diida Allah dalkan ayaa iskale dalkan ayaa umaga cawanka xaalka ma sahlana marakan beesha habar jeclo waxay ka xanaaqeen soo dhaweyntii Fahimo Quujo u sameeyay Cabdiraxmaan Ciro iyagoo xilligan markaasi dalbanayo in maxaabiista laascaanood ka xiran ee Ciro ku ololay inuu soo daynayo si degdeg ah loo soo sidaayo habar jeclo wuu khiyaamay Cabdiraxmaan Ciro shaydaan baa wuxuu dilay habartiisi hooyadiis nadayaa wuxuu yiri shaydaan buu yiri nin hooyadiis dilay waa yahay habar shaydaanna wax la dilay waa tahay hadda habar jeclo wax la khiyaamo waa tahay Cirana nin khiyaamaya waa yahay maxaabiista ay ku qarwayaan oo ay ka sheekeynayaan oo ay ku qaylinayaan oo ay leeyihiin rag baa naga cadiban oo noo soo sidaaya oo Cabdiraxmaan Ciro waa ku ololaysa Cabdiraxmaan Ciro maxaabiis u dhibtay muxuu Cabdiraxmaan Ciro ka qaban karaa maxaabiista laascaanood ku jirta isagaaba la oran karaa uu uga sii daray inay nabad timaado sida hadallada lidnimada ah yasmada ah kelmadaha u adeegsanayo uga sii darayo xiisadii taagnaa sida sool bari heblaayo bari futo bari togdheer galbeed baa idinku degtaan togdheer bari waxa degan hartiba degan haddaba habar jeclo waxay noqotay xabaal iyo ninkeed loo kala tag waana iyaga ugu ayaan daran maanta beelaha isaaq dadka ugu ayaan daran bay noqdeen 9 bilood baa la abinayay yaa wiilashooda keenay xagee laga qabtay ciyaalkooda ma waxa laga qabtay burco ma waxa laga qabtay mataqaanaayay buurta sheekh xagee laga qabtay ciyaalka gooja cad maraaga jabka qoriga guumays intaas laga soo ururiyay yogoori iska daa inay xilligaas isgarsadaan oo ay dib isugu noqdaan oo ay joojiyaan colaadda dadka dariska ah waxaa jira muuqaal cajiib ah oo Faysal Cabdi Bootaan inta dhaawacmay soo laabtay bishii 8aad 2023 25 August aandaha bishii 8aad January aandaha 8aad kowdeedii ilaa 10keedii ma filayaa waa intaysan dhicin 25 August Faysal Cabdi Bootaan inta burco hotel lagu casuumay oo mataqaana hilba loo qalay la leeyahay Faysal hadaadan adigu halkaas joogteen burco caaway kuma noolaan habar jeclo ay leedahay xasuus buu ahaa muuqaalkaas ay baanayaan Faysal Cabdi Bootaan ay soo dirayaan February buu dhaawacmay wuu maqnaa wuu soo laabtay xaqii baa qabtay wuxuu ahaa muuqaalkii ugu dambeeyay Faysal Cabdi Bootaan uga soo dawaan burco haddaan idin xasuusin waa ka beesha halka fadhida ee Sulandaga waa horigoodka qaranka haddii halka joogina wax badan baa hoos inoo ka dhexda ruuxaantii إلى مخارج ما أدري لايفة إلهي نروح نكبرنا سبحانه وتعالى صلوا وارد معي إلهي معلومه هذا فيصل هلكا إنه يشوفين أي رجل منه أنا واحد قالين أنا بدو أنا ياسو وش إنسان
cismaan cabdi haybo ka mid ah ganacsatada gobolka togdheer ee magaalada burco oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah cuqaasha beesha salomadow ayaa harimo sharafeed magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ugu sameeyey jenaraal faysal cabdi bootaan oo muddooyinkii u dambeeyey ku sugnaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer. ugu horreyn ismaan baynu mahadcelinaynaa dadkuna waa wada mahadsan yahay janankan isagana waa mahadcelinaynaa waxaan leenahay anaguna garbahaagaan nahay adiguna hawshaad ku jirta qaranka u hayso ilaahay ha kuu fududeeyo ilaahay caafimaadka kuma siiyo odayaashuna wixii maaragta hadal iyo mahadcelina wey waa soo jeedin karaa waxaan kusoo dhaweynayaa abal yaasiin axmed yeer casumaadda waa guddoominay allah barakeeyo iminka waa ka guddoominay intaa haddaan dhaafo jalankana waynu soo dhaweyneynaa aad iyo aad baynu soo dhaweyneynaa waana u ducayneynaa ismaan cabdi haybe oo isku soo dibariday casuumadan iyadaa noo fidiyey inaad waad mahadsan tahay ma hadda saddexaad waxaa le janankayna kala soo qayb galay reer ahaan ama salomadow ahaan maanta dee halka kan aynu ku wada fadhino inaad jananka iyagii baa tahay annaguna garbahaagii baa nahay aad ku duulaysay wax allaale wixii aad nooga baahato ee dhinacayaga nooga kaa soo xidmana ahlan wasahlan fadal baan ku leenahay shanankeenii oo qiimaha inagu raqaa oo isna inala qadeeyeyna aad iyo aad baan ugu faraxsan boqolkiiba mar faysal cabdi bootaan meel adag buu naga yahay dhammaanteen mid maqan iyo mid joogaba hadalhaynteenu ka hurda iyo ka soo jeedaba dee faysal cabdi bootaan baynu dee ku seexanaa kusoo tufsay waxaasna dee waxaa keenay hawshooda inoo hayo iyo halka uu inaga taagan yahay baa dee intaana keentay isagana waynu ducaynaynaa ilaahay amriga ha u raajiyo umadka iyo awliyaa iyo ehelkaba alla ha u wanaajiyo iyo dhammaanba waxaana ku burinaynaa leena faysalow halka aad ugu jirta somaliland na waa laga wada warhayo anana gaar ahaan hawshooda waxay aaminsan tahay hurdadaa ay ku jirto iyo halkaa iyo ganacsigaa iyo shaqada haddaan faysal halkaa inaga joogin iyo ragga lamida inaanay waxaas inoo suura galeen annagu de annagaasoo iska shaqaysanayn miyaayada iyo xaasiskaiyo marka ilaahay ha kaajisaa qiimahaagana waanu ku suinahay jacla ku dhigo waana ku ducaynaynaa waana ilow shadhawaaba yiri mu'amulba haddana meel kastay ka cabaadayaan ay leeyihiin maxaabiista iyo noo soo sii daaya war isaaqa kale maxaabiis kama xirna miya war habar jecel habar awal maxaabiis kama xirna miya war arab kama xirna miya war habar jecel bas maxay kiiska maxaabiista mar walba uga hadlayaan macnaha waxa weeye xaqii baa qabtay dulmigii baa qabtay waxaan moodaa maxaabiistu kuwa iyagu ay dad u dhiibtoon oo loo soo furfurayo loo soo furdaaminayo oo mataqan meel iska taagtaaga runtii waa ayaan darriya xanuun weeye soo dhawaada dhammaantiin habeenimo ay sii baxaysa 22 Julaay 2026 wuxuusan filayn ayaa god uga soo baxay Cabdiraxmaan Ciro mid ka mid ah beelihii ugu awoodda badnaa maamulka Hargeysa ayuu waayay mar haddii wixii uu ka shaqeynayay uu ku faanayay uu yiri sanad baan waxaan ku qabtay qaramayn ciidamada koobay ka soo bilaabanaysaa beesha habar jeclo oo habeennimadan la soo tibinayo in ciidamadeedii oo dhan ay la baxday magaalooyinka Qorilugud iyo Caynabo ayay xilligan isugu keenayaan ciidankooda ilaa iyo og iyagoo sidoo kalena ku amray ciidamada kale ee qabaa'ilka kale ee ku sugan deegaanadaas inay isaga laabtaan guryahoodii go'aankan ayaa waxa ay khubaradu leeyihiin wuxuu soo dadajin karaa in beelaha kalena ay jifi kasta ciidamadeeda markaasi la baxdo waxaan halkaasi ku burburayo qorshe nidaam dawli ah oo Cabdiraxmaan Ciro uu ka shaqeynayay 2 sano oo mandatekiisa hadda haystay isagoo boqolkii maalmood ee xukuumaddiisa ku faanayay in ciidamadii qabaa'ilka Isaaq uu mideeyay ay halkaasi ku burburi doonaan beesha habar jeclo ayaa go'aankeeda sal uga dhigtay go'aanada aan ka fiirsiga lahayn ee qalbiyadooda aan loo tirayn ee xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro ay ku dhaqaaqday fariimaha ay direenna waxaa ka mid ahaa baqaya reer magaalo bayna barto beryahanba wayna booqanayo baraarkeeni waan u baqaya war anu maanta Soomaaliland waan u baqanaya
su-aashaadii haddaanu soo noqdo de waa inan oo inan ka hadla anigu ma qurux badnayn oo dee ma jecli horaanan uga hadlay dhulbahantay wixii imanaya inay dalkoodii hoyn oo lagu soo dhaweeyo laakiin qaabka xukuumaddu u soo dhaweysay si may ahayn practical leh waxa ahayd qaab istabayaaca oo runtii anigu ma ambogisa loo soo dhaweeyey waayo in la baaweeyo may ahayn waayo meesha waxa Soomaaliya ku maamaadaa halkaad qof kaga tegayso halkaad qof ka qaadanayso qof baad kaga tegaysaa inay eegto qarankii iyo dadkii iyo ciidankii iyo shacabkiiba la eego oo sidan loo soo dhaweynaya madax dhaqameed wasiiro maxay haytay kaale arag de xukuumaddiiba ay maartay aan u qaabka uma ambogin runtii iyo baaweynta inta leeg may lahayn aad sidaa yeeshay raggayagii oo xidhxidhan miyay keentay fihiimiinamadii 300 inana xidhnaa miyay keenta 300 halkaa ku xidhan laascaanood iyo 200 oo haysta cabdimadoobe 500 inan cabdimadoobe muxuu moodayaa inaan la ogeyn inuu rag haysto 500 inan haddii la waayo oo aad keeni weydid ololaha aad ku gasha buurta lagaaga soo rogay habar jeclo way kuu codaysa salaadiinta yadaanaad nagu qasabtay in laguu codeeyo waxaan ku yidhi dhulbahante ma fihiimuu noqday laascaanood ma fihiimay noqotay waxaad samaysaa haddii rag heshiis rabana ha yimaadaan annagu rag baan la xisaabtamaynaa haddaan rag heshiis rabina annaga fihiimu waxay noo keenaysaa ma jirto habar jeclana xoog bay kula soo baxaysaa raggeedii waxaanu samaysanaynaa haddii aad noo soo jawaabi weydo ciidamo waxaanu samaysanaynaa waanu is abaabulaynaa hablii shalay hargeysa ka hadlayay annagu isku mid baanu nahay waxa weeyaan raggayagii adaanu kaa xishoonayn adaananu kugu dhowrayn waanu heli lahayn bari hore madaxweyne gabadha anagu ma arki karno mana doonayno si degdeg ah madaxweyne Soomaaliland uga saar hadii kalena Soomaaliland waa sanadkii burburi lahayd yay gacantaada ku burburin madaxweynayaashii ka horeeyay madaxweyne way dhiseen adigu ha burburin fihiimana labaan leeyahay waxaan leeyahay fihiimay labadii erey aad ka dhawaajisay maanta aday bas kugu yihiin kabahaad leedahay afka ku qaadana adaa ku soo qaatay kuwii kalena way ku soo qaateen madaxweynaha waxaan ka codsanaya inuu ka hadlo maxaabiista halkaa ku xidhan weli hudheel quro la isku abaabulay oo maxaabiista lagaga hadlayo weli maanu arag ciidankayagii halkii lagu qolobaagadiyay waad garanaysaa laakiin annagu dabqalatada inaanu qiimayno inaanu ka hadalno midna maaha adigaanu kula hadlaynaa maxaabiista iyadii sida u dhaqsaha badan leh in aad uga jawaabtaan u baahannahay odayaashayadaanu cabashada ku badinaynaa odayaashayadaana dee maanta halkaa nugu simay annagu waxaanu sidaan doonaa nula soo bixi lahayn markaa waxaanu sheegaynaa madaxweyne inaad arrinkayaga oofiso aanad isdaafinin aanu wixii aanu waajibu lahayn inaanu helo cajiib arrintan ayaan la ogeyn sida Cabdiraxmaan Cirro u xallin doono beesha habar jeclo ayaa waxay leedahay waxaan u tanaasulnay Cabdiraxmaan Cirro maalintii uu yiri aarsada iyo Cabdimudalib baan sii deynayay ragii kale 12kii laga sii daayay jaalka baan u tanaasulnay laakiin si markaan uma tanaazulayno beesha habar jeclo ayaa waxay heleen xog sheegayso in Fahimo Quuje imaatinkeeda kadib la sii dayn doono ku dhawaad 30 maxaabiisaha u badan beelaha dhulbahante iyagoo xilligaas sheegayo in dhammaanba ciidamadoodii ay kaga xiran yihiin laascaanood Cabdiraxmaan Cirrana uu markasta u sheegayo inuu isticmaalayo siyaasad jilicsan ama soft power si uu soo gaxarigeliyo dhammaanba beelaha dhulbahante gacantana ugu dhigo magaalada laascaanood beesha habar jeclo ayaa markan waxa ay ku adkaysanaysaa oo ay si cad u leeyihiin ma aqbalayna mar kale in nala qiyaameeyo ama nala gaado Cirrana waxayba taagan yihiinba waaba huwan waxayba taagan yihiinba wuxuu la shaqeynayaa hartigu la shaqeynayaa ba taagan yihiin mabaadiidii maamulka lagu aasaasay ku tumanayaa bay leeyihiin nimbasi wax ugu muuqda muruqa laba suulle uu yiri nimbasi ku ah muruqa laba suulle nimbasi ku ah Cirrana wuxuu taagan yahay sidaas ay ugu badisaayo waxaan rabaa inaan kala dhantaalo awoodda hartiga dani gaar baan heshiis ula galaya firniyo iyo kooxiisana anaa soo kala furfurayo ee isuga halka beelaha habar jeclana ay taagan yihiin war 15 sano laascaanood joognay oo Soomaaliland ama Isaaq uu laascaanood joog haddana aakhirkana laga soo saaray si kasta aad isugu daydid sasabaad samee ama isjilci ama isdhuldhig waxay taagan yihiin xaaladdu aakhirka waxba inoo gaba suurtagalayaan qorshayaashana ummaduna wayna fahansantahay duniduna way soo gaartay
maanta ilmaha yarkay 3 jirkaaba qiyaamooyinka iyo dhagaraha garanay iska wada dadka waaweyn oo waa yaaraga ah ee amay ku roontahay bay leeyihiin inaad war cad noogu sheegto wiilasheedii halka cirro uu taagan yahay wiilashii anigu laas caarood ma geyn muuse biixi u qabsada halkaas lagu kala booday jiq way tahay xaalku waa baraka malay xogaa kale aan helana ayaa xaqiijinaya inay ku daba xigaan go'aamo kale oo qaraar sida in beesha habar jecel ay joojiso wax anshuur bixin ah in ay samayso mar hadday ciidamadooda qabaa'ilka la baxaan oo nidaamkii la sawirayay ee maamulka Hargeysa inuu ciidamo leeyahay ay kala baxaan oo ay jabhadooda qabiilka ku laabtaan canshuurtana ay joojiyaan go'aanka canshuurta ayay waxay u cuskanayaan in ciidamadooda siin doonaan canshuurtooda halkaas waxa muuqanaysa in uu burburay ama fashilmay nidaamkii Hargeysa ee awalba halka beel ay isku celcelin jirtay ama ay jiliinka ku sameyn jirtay waana fashil iyo guuldarro kale oo xanuun badan oo ku dhacaysa Cabdiraxmaan Cirro intuu islahaa maamulka waqooyi bari kala dhantaal maamulka SSC Khaatuma dhibaatee beelahaas dhul bahantee ma taqaanaayay qiyaame isagii ayaa godkii u qodayay ku dhacay waa iyana waa cibaaraha waqtiga taynu aragna aad iyo aad qodobkaas halkaasaan uga tegaya qodobka ugu dambeeyo oo aan rabay inaan kusoo gunaanadana waa kan maxaabiista aan ka hadla runtii maxaabiistu wadada ay marayaan ama mari doonaan ilaahayba og laakiinse maxaabiista waxaa lagu qabtay aragtiyo inta kooxaha Hargeysa joogo oo Cabdiraxmaan Cirro tiimkiisu ay hogaaminayaan ay u fakarayaan arrin xaaladda uga sii dari karta waxay ila tahay inaysan waxba soo dhawaanayn ama waxba soo naasacdaanayn habeenimada anigu waan jeclay kuwa laascaanood joogan inay baxaan oo xorriyadooda helaan wixii dambiyo galay oo xasuuqyo geystay oo cadeymo lagu hayo oo maxkamad u baahan marka laga reebo laakiinse askarta ma taqaanaay la qalday ama la yiri mushaar baad qaadanaysaa ya qaran iyo xuduudaha difaacaysaane la qalday iyo kuwa ma taqaanaa guryooda laga afduubtay ma taqaanaay Hargeysa ku xiran ilaa nimankan guryooda laga afduubtay in caawa la isweydaarsado ama ay baxaan waan jeclaan lahaa waana waxa qof kasta uu ku haminayo waana arrinta ugu midan ee ay tahay in loo qumo oo loo istaago laakiin si yaa la rabay in arrimahaas ka shaqeeyaan yaa ehel u ahaa yaa la rabay in hawshaasi qabtaan idinkan idin daayo su'aashaas qaybta wasaartida nagula wadaaga aad baan in salaam meel ka soo joogtaan saaxiibadeena ciao